وحن isagoo ka warhaya dhagaha ka gufaysan jiray buu ah aabba aan weligii aniga isoo kornin oo sila aan ku jiray ku naxariis ku dareemayo aabba kale ee xasho badnaa oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالقة سو دوادا ولاش من القرن يجي كذا إني وحول بهايس سو دوادا هذا يقول عصب طيب بليس أصحابتك من نقو هذا هوري اللي جوكتر ما حسن تحي هذا إني سلامية ومغليسين قبلان يرتاح ما أنت برنامج كأنه حكو سامي والدك هرتو أحمد المياه dulmise ma galaa mase jiraan waalid ilmahooda kala jecel waalid ilmahooda kala jecel ma jiraa arrimahaas aynu isweydiinaynaa bal gabadhan yartaa aynu dhegaysano ka dambena aan falaqeynaynaa insha allah qoyska kale u eexanayay buu ahaa aabbahaas aniga dulmi weyn u iga galay aabbahaas aniga aabba ma dhihi karo waa aabbayo xuusha waa aabba xun aabbana ma dhihi karo aniga maanta qof garabkayga taagan maba haysta aniga laakiin ilaahay waxaan ka baryay salaamu calaykum waa in salaamada muslimka markasta dunida aamaba joogtaan aniga waxaan ka sheekaynayaa qiso xanuun badan oo aniga igu dhacday qiso xanuun badan oo aniga maanta aan ka wacyigelinayo dhibaato qisadeeda gabadha aad dhegaysan doontaan aabbaha waxay tiri aabbo u kala eexday ilmihiisu ahaa aabbo naxariis aan lahayn buu ahaa aabbo kala jecel buu ahaa ilmaha uu dhalay arrintaasu gabadhaas horta ay sheegayso 100% waa jirtaa aabbayaal waxaa jira hooyada ay haystaan keliya ilmahooda keergareeya laakiin ilmaha kale oo hooyada kaleeto ay kala tageen ay dhashay ee isaga gacantiisa soo galay aan keergarayn maxaa keena qoyska u guursaday gabadha u guursaday ayaa saameyn ku yeelata wax badanna waan arkay oon markhaanti u ahay arrintaasuna way jirtaa way dhacdaa laakiin ciladu intay ka bilaabataa horta kow reerka kale ee markaas cunugaas meesha lagu dhibaateynayo guriga aabbaha hooyada lagu dhibaateynayo jooga ee hooyadii laga soo qaatay ama soo mutay ama ha ka dhimato ama ha dhigto ama aabuhu baa ka soo qaatee ayaa horta dhibka ku dhacaa saameynta ugu weyn waxay yeelata qoyskaas hooyada markaa guriga joogta because aabaha markuu guursado qoyska guriga joogaa waa xaaskiisii xaaska haddayn iyadu cadaalad aan samaynayn qof fiicanna ahayn aabaha saameyn bay ku yeelanaysaa waxaa laga yaabaa hadday aragto xataa aabuhu inuu xoogaa ilmihii u nugul yahay inay ku dirto wax dhacana waaye markhaanti iyo cadaymo badanna anaa u ahaaya arrintaas na cidna ka wareysanayn aabbaha markii uu marka sidaa ay ku samayso oo ay saameyn ku yeelato aabbayaashu waa laba marka mid waa kan gabadhaana sheegayso oo inta badanna aabbayaashu u badan yihiin aabe ilmo kaleeto oo naag kale uu kasoo dhalay naagta uu qaba u geeya ma ka yargareeya mana jecla because iyadaas iyo ciyaalkeedu ka yargareeya midna waa aabe ilmihiisa ay u siman yihiin oo hooyada markaa gurigaa joogta ee uu qabaa inta uu maqan yahay keliya ay wax dhibaateyn karto laakiin markuu yimaado cunugiisii dareema marka dambena xalkeena oo markuu dareemo oo ilmihiisi ka warhaayo wuu dareemayaa dhibka meesha ka jira wuxuu dareemayaa waxa meesha ka socdo dareemaya taa markuu sameeyo oo arrintaa dareemana maxaa fududaanaya inuu aabihii xal helo ama cunug meesha ka kaxeeyo ama ayay hawgeeyo ama qof kaleeto isleeya u roon hawgeeyo ama cunuguba hadduu qaangaar yahay meel kaleeto ha dejiyo xal buu keenaya aabahaas waa aabaha fiican oo og inuu cunug kale oo aanay gabadhaanu dhalin ilmahan la hooyo ahayna ay joogo laga yaabo marka cunugiisi markuu soo galo inuu diifaysan yahay inuu si u bahdilan yahay inuu maanta intuu maqnaa hooyada eedadaas marka inta uu ka maqan yahay kaliya dhibaateyn kartaa laakiin markuu soo galo ma dhibaateynayso hadday ogaatona waxa weye in la og yahana inta badan waxaa laga yaabaa aabbuhu inuu ka canaanto laakiin aabbaha eberka ah
ay ragga inta badanna u badan yihiin waa aabbaha isaguba dhibaatada wax ka geysta erey bay u sheegaysaa iyadii baa cunuga dhibaataynaysa isagii bay haddana kusii diraysaa isagii bay been usii sheegaysaa isagii bay kusii dhibaataynaysaa isagii markay been u sheegtona aabbihii cunuga dhibaato u geysanaa dhibaatayna isagii baa laga yaabaa inuu garaaco oo war islaantii usoo sheegto uu ku dhibaateeyo isagoon isweydiinba marka gabadhan yar tahay qisadan ay inla wadaagayso dad baa laga yaabaa inay iyada ku dhibaateeyaan laakiin waa wax jira wallaahi oo bilaahi utallahi waa wax jira oon ogahay oo dhacday oon caddaymaheeda hayno oon markhaantiyo ka nahay marka aabbayaasha ilmaha intay waalidkood ka qaataan islaanta ay qabaan u geeyaan iyaguna dhibaateeya baa ugu xun aabbaha islaanta dhibta u geysato keliya cunug wuu ka bogsan karaa haddii aabuhu la jiro oo uu dareemayo laakiin markuu islaantiina ku dhibaatayso aabihiina markii lagugu soo diro uu ku dhibaateeyo arrinka xun ma jirto ila dhamaysta gabadha arrinteeda aniga igu dhacday inayna dad kale ku dhicin aniga nolosheeda waxaan lahaa gabadh da'yar oo hadaf nolosha kale inaan noqdo qof aqoon-yahanada oo ka mara dhalisan nolosheeda aniga laakiin noloshii hadafkii aan ka lahaa iyo himilada nolosha ka lahaa hal mara ayaa laga burburiyey walow aan qadarta alla unigu dhacday waxaan tahay wax qadar alla oo aniga la ii qoray oo dhibkan oo dhanba ayaa xilligaa wax gabadhan waxay sheegtay inay hami lahayd nolosha hami ka lahayd inay wax barata rabtay inay meel gaarta rabtay laakiin ay ka burburtay su-aasha iiga soo baxda ama aan rabo arrinta aan xogogaalka u ahay oo aan rabo inaan wax ka sheego waxay tahay arrinta wax ma la baraa ilmaha guriga aabbaha ku nool ee islaan kale ay dhashay maya wax lama baro because eedada iyo aabbahaas markaa isku xiran dartood waxba lama baro saameyn xog leyna ku yeelataa nolosheeda wiilashii xataa saameyn ku yeelataa iskabadaa gabar horta gabar iyadu waaba u dhamaataba waxay ka noqotaa gurigay booyas ka noqotaa inta badan gabdhuhuna waa kala actifsan yihiin gabar waxaa jirta markay aragto dhibka jira dhuumata oo kaba dhuumataba oo reerka ka goosata iyo gabar aan tegin oo meesha ku dhamaata dhibaatadii mentally u dhimata muuqaal ahaan u dhimata rafaada iyo mid ka cararta midda ka cararta xal bay leedahay labay noqonay ama way hagaagi ama way tegi laakiin midda ku adkaysataa way ku burburtaa sida gabadhan ka muuqatana kuwa ku adkaystay ahayd aabbahaas marka isaga nafkiisu aabe ma aha magacu aabe ka yahay laakiin aabe ma aha wax alla wixii loo sheego u dhagaysanaya isaga ka dhibaato badan eedadii iyo guriga intuu ka maqan yahay dhibka ku haystay gabadhu waxay noqotaa booyaysta gurigay noqotaa waxaa laga yaabaa reerka inta kale inay waxbarasho aadaan ama ay si fiican u noolaadaan laakiin iyadoo inay u noolaan dharka dhaqdo guriga hagaajiso cuntada kariso ilmaha xambaarto dhaqdo u qubayso la dilo haddana dhib ay ku qabto gaajaysan tahayna gaajana u dheertahay way dhacdaa markhaantaana ka ah taas maalinta qiyaame aabbayaal noocaa sameeyana way buuxaan ku soco ii qorna laakiin inaan ku wax qaato inaan ku cimro qaato weeyaan aniga heer waxaan soo mara aniga xarig la igu daldalo oo ii ahay daldalaada naxariis heer waxaan soo mara aniga la isilsiladeeyo oo inta la isilsiladeeyo halka la igu jirdilo wejigayga hadda labadan waa maqlaysiin waa la xiri jiray waa la silsiladeyn jiray yes waxa loo silsiladeynayo ma taqaaniyo anigu naadarto aan dhahay oon ogahay oo wallaahi oo bilaahi aan ogahay waxa loo silsiladeynayo ma taqaaniyo gabadha aan hooyadeed joogin aabbaha waxaa loogu waramayaa gabadhaadu waa firiqo markaa baxdaa wiilasha magaalada ka haysta dariskay u laabataa waxbay xaday aabbihii markuu yimaado wuu dilaa wuu xirxiraa inta badan islaanta ma aha inuu aabbuhuba maqan yahay hadda meel fog jiro ma ogi islaanta ma aha waxay xirta aabbaha xirxiraya aabbaha daldalaya aabbaha dilaya islaantaana ku diraysa wax kasta oo qofka lagu dhibaateyn karo ama karaamadeeda lagu dili karana waa lagu sameynaa gurigana waa u dheeriya arrintaas marka xirxirkan ay sheegayso dad baa la yaabaa ilaahay see loo xirxiraa waxaa loo xirxirayaa waxaa laga dhaadhicinaya ama lagu caynaya inay qof xun tahay aabbihii marka waxaas loo sheegay ma wareysanayo cunugtii ma wareysanayo cunugii ma wareysanayo ma dhahay maxaa socda maxaa dareemaysaa
maxaa dhiboo jira ma wareysanaye markiiba ficil buu qaadaya ficilku qaadayana waa in la dilo waana dhibka ay ka sheekaynayso ku soco meelood ee madow fiiri labadaa meelood madow ma aragta dab la igaga dhajiyay anigoo nool oo nafsiga jirto heer waxay ahayd dhimashadu ay ahayd aniga sad inaan dhinto farxad iyo ahayd naxariis aan ku dareemayay alla marka cunaha saa lagu hayo ma iska dhimatid aan dhihi jirin heer waxaan soo maray hadda marka waxaa iigu daran qaraacankayga marka arko qof meel ka qalan jabinaya ama marka arko qof meel heer ka gaadhay inaan ooyo aniga ooyo waa isa soo daashaday aniga xanuun waan soo maray aniga ismaliya hadda hadaf kale noloshaada oo ka miradoonaada balse waxaa noqda qof nolosha ku guuldara gabadha yartaa talaan siinaya hadday maqlayso ama qof garanaya u jiro fideogayga u geeyay bliis hooyo adduunka waad u hor leedahay welina dhalinyaraa tahay maantana adduunkii wuxuu noqday taleefonka hadda lifekaaga aad kusoo gashay ee adigu aad soo fariisatan cidina kaa duubin ee adigu intaad soo fariisata aad iska duubtay waa horta wax walba ku jiraan halkaasaad horta wax ka baran kartaa naftaada ka bedeli kartaa meesha dhibku kugu haystana iskaga tag hadda ciyaal ma tihid qof ciyaal ah ma tihid meesha dhibaatada kugu gaartay lagugu dhibaateeyey waalidkii ku dhibaateeyana ay ka muuqdaan ka fogow horta meel aadan aragooda ka arkayn dadkii ku dhibaateeyey aadan marna arkaynin horta tag because psychological baad u baahan tahay inaad u bogsato inta ay kaa ag muuqdaan ama aad arkayso ilmihii kula dhashay oo waxbartay oo agagaarkaaga jooga ama aad arkayso aabihii ku dhibaateynayo agtaada jooga ama aad arkayso meeshii lagugu dhibaateynaya ilmihii da-daada ahaa ay wax ku barteen adiguna aad ku habsaantay sinaca aragtana lagugu soo marsay intaad arkayso horta ma bogsanaysid talada aan ku siinayo waxay tahay horta meeshii lagugu dhibaateeyay haddaad weli joogto horta iskaga tag hadhihin waa niyad jabay oo noloshii waa ii dhamaatay hadhihin nolosha hadday ku hor leedahay dhibka ku soo maray waxaa kaaga damayn doona faa-iido waxaa kaaga damayn doona nolol fiican oo aad gaartaa kaaga damayn doonta hadalkaygaa u geeyay biliis u geeyay waa idin baryayaa u geeyay qofkii garanayo faa-iidaa kaaga damayn doonta waad bogsan doontaa meel baad gaari doontaa kuwii ku dhibaateeyey iyo kuwii lagu dhibaateeyey iyaga dartoodna hoostaada imaan doonaan waxaa laga yaabaa aabahaas hadda aad sheegayso ee saas ah iyo wixii kaloo kula dhibaateynaya inay hoostaada yimaadaan adiga kusoo mutaan maalmaha kamid a wayna dhacaysaa wayna dhacdo waa wax la ogaaday adiguna waad liibaanaysaa laakiin ha niyad jabin niyad jabka kaa muuqda waxa weeye waxaad aaminsan tahay inaadad meel gaarika waa gaari kartaa ka tag meeshii horta dhibaatada kugu gaartay adiga maskaxdaada u sheeg in dhib aad soo martay laakiin hadda aad ka baxday intaa kaliya u sheeg maskaxdaada ha u sheegin inay dhimatay maskaxdaada ha ku celinin falaashka aad siinayso ama waxa aad u sheegayso yay noqonin waa dhimatay meel ma gaari kartid noloshaada lagu soo ciyaar no haddaa u badato 20-25 baa jirtaa ama waad ka yartaa 80 jir baa wax lagu bartaa wax waa baran kartaa waad shaqaysan kartaa adiga oo booyays noqota oo qof u shaqaysa subaxiina shaqo tagto guri soo tirtirta habeenkiina wax barata baad helaysaa meel na xorriyad u degta horta wax talada aan ku siinay waxay ku tahay horta meeshii aad dhibaatada kugu gaartay haddaad joogto ka tag hooyo tag meel kale tag meel kale oo weliba xataa hadalkooda iyo qabiilkooda iyo dhegahooda aadan ka maqleen tag doono si aada isu bedesho shaqaale noqo shaqayso adigu meel iska soo saar naftaadana ha ka dhaadhicinin hana u sheegin inay dhimatay u sheeg inay ciishootay inay rafaad soo martay laakiin ay ka baxday in markay yarayd la dhibaatay laakiin hadda ay ka gudubtay u sheeg horta taa u sheeg naftaada waadna guulaysanaysaa meelna waad gaaraysaa haddii aada jirto ood rabto meesha aad rabto inaad ka baxdo ama aad rabto caawimaadna waan ku caawinaynaa aada baan ku caawinaynaa aniga youtube-kayga waa kaasa lambarkayga meesha ku jira facebook-kayga uu saaran yahay halkaa igala soo xiriir ku caawinaynaa daad adiga laakiin niyad jabka kaa muuqda ha samayni u sheeg maskaxdaada wax kale u sheeg horumar u sheeg inaad ciil baxdo u sheeg inaad garowgarayso u sheeg in aad wixii aad soo martay ka bogsato u sheeg inaad mustaqbal gaarto u sheeg
ha u sheegin inay kuu dhamaato kuuma dhammaanin hadalkaas dhamee istaaqfirun laka dheh 2 ragco ka tuko ilaahay ka bari ha isku gafin cil waa la maraa laakiin waa laga baxaa aday kugu xiran tahay intaasaan kuu soo dirayaa ha layga gaarsiiyo biliis qofkii garanaya ku soco waxaan noqdo qof nolosheeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheedaba lagu ciyaaraa noqdo waxaan noqday gabadh dulmi laga alla inkaar badana waalidku hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmay hooyo kasta oo Soomaaliyeed gabadha u nooshay weeyday waxaan leeyahay hooyo macaan gabadhaada ilaasho hooyo macaan aabbo kasta oo fiican u helay aabbo gabadhaada ka warhay xitaa haddii ayna hooyadeed u nooleen adigu ka warhay adigu ilaasho aniga ma oran karo aabbahan la soo goray aabbo wuxuu ahaa fiican aabbo daahir ahayn buu ahaa aabbo xun buu ahaa aabbo ilaahay aqoonin oo tacadiga ugu xun isagoo ka warhaya dhagaha ka gufaysan jiray buu ahaa aabbo aan weligii aniga isoo kornin oo sila aan ku jiray ku naxariis ku dareemayo aabbo kale ee xasho badnaa oo qoyska kale u eexanaya buu ahaa aabbahaas aniga dulmi weyn u iga galay horta isaga qiyaamo war baa u yaallo qiyaame war baa u yaallo waana jirtaa waana arrin la ogyahay oo dhacda waana arrin badan waana runteed aabbayaashu waa saa hore inuu kusoo sheegay waa labo midna ilmihiisu ka warhayo midna kama warhayo midna isagaaba dhibaateeyaba oo dhib u geystaba marka horta isaga war baa u yaallo maalinta qiyaamuuna ka sheekayn doonaa oo isagoo kala sarreeya oo kala hooseeya uu imaan doonaa laakiin gabadhan yartaa waxaan leeyahay noloshii hadda waad ka baxday alxamdulilah waa adiga gaartay inaaba intaad soo fadhiisato sheegan karto warayna waad u socon kartaa mustaqbalna waad yeelan kartaa meelna waa gaarin kartaa keep going baa ku leenahay qof kasta oo gabadhaas meeshay joogto jooga oo gabadhaa yartaa garanayana waxaan leeyahay ha caawiyo weliba gabar haddaa tahay waa inaad caawiso waa in talada aan siinayo ay qaadato meeshii lagugu dhibaateeya ka tag ka fogow aabbahaas xun ka fogow wuu jiraa aabba xune ka fogow aabbaha xun waalid xun wuu jiraa waalid caasi iyo waalid caasi baa kala jira waalid caasi wuu jiraa marka waxaan leeyahay ilaahay hooyo ha kuu dhibdhaamo waadna ka baxaysaa laakiin marna ha iska dhaadhicinin inay noloshaada meeshaa ku dhammaatay taasaan kusoo koobaya beriis haddaad garanaysaan iigu geeyay fideoga waanadaa yar oo aan u geliyay ha qaadatee gabadhaa yartaana ha la caawiyo horey baad u socon kartaa businessley baad noqon kartaa maxay waxbaad baran kartaa maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin addoonku sidii hore maaha waxaan ku leeyahay keep going maskaxdaada laakiin fikradda aad ka dhaadhicinayso ee ah inaad kuu dhammaatay ka saaraan ku leeyahay walaalayaalo ragga Soomaaliyeedu ilmihiina ha u kala eexanin mid aad barkan doonto ma ogid gacan aad barkan doonto ma ogid wallaahi se waxaan ogahay oon xaqiiqdeeda haya oon goobjoog u ahay oo anigu markhaanti ka ahay ya in qofka la dhibaateeyo la muto ilaa isaga aada mudatana ay naftu kaa dhacayn aabbahaasna waxaa laga yaabaa gabadha maanta sidaas u oynaysa inuu berri gacanteeda ku dhaco wayna imaanaysaa wayna salaamayaa walaasha nadiif qaran barnaamijkii communitiga wacyigelintiisa oon gabadha yartaa moral support ku siinayo garabkaagan taaganaan kulley because waan ogahay wax badan baan ogahay aabbayaasha noocaasaan ogahay siday wax u dhibaateeyaan baan ogahay waana ku salaamayaa hooyo waxaan ku leeyahay don't give up haniyad jabin keep going hore u soco insha allahu tacaala waad guuleysanaysaa hore u soco akhriya adduunna waad liibaanaysaa isaguna qoomamiyo ciil iyo cadaab buu ku damayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu